بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal sidaad ogtihiin maalintii shalay waxa warbaahinta ka soo hormuuqday gaar ahaan telefishinka sahan wiil daayar oo ka soo jeeda magaalada Burco isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland ka codsanayay inuu u guuriyo wiilkaasi oo sheegay in dhalinyaro fara badan oo isaga la mid ah ay dareenkan la qabaan haddaba magaalada Burco gaar ahaan hotelka Green Coffee waxaan kula kulannay abwaan daayar oo kamid ah abwaanada reer Burco laguna magacaabo Cali Maxamed Ibrahim Cali Dhanaaniye abwaanku waxa uu dareen maanso ah ku cabiray arrinkaasi inankaasi ka codsay madaxweynaha madaxweynihii guri bal Cali ku soo dhawaasan TV adiga iyo maansada iyo gabadhaaga soo dhawaad maxamed mato wad mahadsan tahay waa dhaway walaal ninkaas dhalinyarada ahayd dareenka uu madaxweynaha la wadaagay wuxuu ahaa dareen dhalinyaro badan ay qabto marka luqadii isagu ku hadli karayay inuu ku soo bandhigay aniguna markii aan arkay shalay toona waxaan jeclaystay inaan bal suugaan uga cabiro dareenkiisa oo madaxweynaha gaarsiiyo maadaama suugaantu ay waarto wax taariikhda gasho tahay barito hadalkaasi waxa laga yaabaa inaan meel fog gaarin laakiin suugaantu meel inta ka fog bay gaari kartaa marka inaan dareenkii madaxweynaha suugaan ahaan ugu gudbiyaan jeclaystay anigoo xaaladaha dhalinyaradu maanta ku sugan tahay iyo xaaladaha dalka ku sugan yahay iyo waxa madaxweynaha looga baahan yahay oo dhan doonaya inaan tixdan ku soo ururiyo marka waxay odhanaysaa inaan guriga galeelaanu ku heshiinay gabadhii gunyaan u heli waayay galbiskii arooskii madaxweyne ii guuri inta aanay garac qaadin ee aan guriga laga caydhsan inta aanay kabar gaafan guradiisa ku dambaynin ama aanay gadin shaaha madaxweyne ii guuri inta aanay gaal raacin gacanyaro u noqon hayad dabadeeto guumoobin madaxweyne ii guuri inta ay geyiga joogto ee aanay gudin caawa ama yurub u googoosan madaxweyne ii guuri baasboor guduud oo cas gaban haysta oo doola oo gini Australiina guna caydha loo siiyay intaanu u gacan haadin ingiriisna iga geysan madaxweyne ii guuri wada gabadhii aad iskala sheekaysanaysay ama aad isku ogeydeen bade haddii aad ka soo bixi kari weydo xilkii iyo hawshii ama lacag aad u weydo adduunyo inaan baa intuu iska soo degay baasboor sita oo xogaa caydha la soo siiyay iska kaxaysanaya gorgorkii intaan haadkii ubadkeena googoostay garbaheeda feenfeenan ee aan la geyn ilka madaxweyne ii guuri gasamtiye intaan dhaale duq gaboobay laga siino carabaha ka soo guuray madaxweyne ii guuri gaafiya aroos fiican golo dheehan oo muuq leh oo bilici gaashaysay gacalkii xigtana deeqa hanti gaadho oo xoog leh aduu guula kuu dhiibo goyn karaya maandhowe madaxweyne ii guuri adigaa guddoonshii ah xilka guudka loo saaray gadhwadeenkii adigaa ah inuu geesawado beesha u guntaday ii hiili oo gacaladan doortay madaxweyne ii guuri guur xalaala wiil doonay oo garabku weydiistay waa xaq inaad gargaartaaye gurmad baanu filaynaaye dhalinyarada guuxaysa ee guurka doonaysa adiga iyo golahaagu gacan siiya madaxweyne intee leeg baad filaysaa in dareenkan dhalinyaradu ay la qabto wiilka wallaahi niyo waxa la jirta wiilankaasi ka dhawaajiyay waana sahan hortii ninkaasi oo rag badan baa ka dambeeyay sida uu inoo sheegay isaguba wayna xaaladii dhalinyarada iyo dalkaba waynu aragnaayo waynu u jeednaa ma jiro qof maanta guurkiina cirkaas isku shareeray oo adiga garanaya halka maanta ninka faruq qaada 10,000 ama 15,000 boy ayay ku tagaysaa marka ninkaasi xaalad buu ka dayriyay dhalinyarada oo dhan haysata ee waxaan lahaa cidii karaysaba guurkana hala fudaydiyo si ay sinadu meesha uga baxdo si ay xaraantu meesha uga baxdo umadan si ilaahay ugu naxariisto ilaahay inooga soo qaboojiyo mashaakilaadkan dhinac walba ina haysta bal hala guurkana hala fudaydiyo dhalinyaradana hala isu guuriyo madaxweynaha iyo inta kale karaysaana arrinka ha ka jawaabaan badan dhalinyaro markay dhinac kale iyo ka istaagaya arintan ama dad iyo kale oo si kale uga falcelinaya oranaya macnaha ma yahayn wax warbaahin la yimaado ama ma yahayn wax la soo istaago halkaas oo laga hadlo dadka maxad leedahay horta Soomaalidu waxay tiraahdaa ninba meesha bugta isaga bilbashaaye ibtirada qofkii qabana laba aamusiyade nin dhibaato haysato weeyaan ninkan soo cawday marka haddii adigu ay ku gaadhay oo adigu aad isbixin karayso dad baa jiraan isbixin karaynin ha ku tiigaalin baa leeyahay dadka ha ku tiigaalin waa Maxamed Moto Sahan TV Burco